ururka Saykoofo ah urur ka dhisan magaalada Gabiley ururkan Saykoofo laantiisa waxbarashada ayaa maanta xaflad ay qabatay shahaadooyin iyo jaaysado siisa ardadii kaalmo hore ka gashay imtixaanka ay qaadeen sanadka xafladan ayaa ka qabsantay hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada Gabiley waxaana ka soo qayb galay agaasimaha waaxda qorsheynta dawladda hoose ee Gabiley macallimiinta wax ka dhigta laanta waxbarashada ee ururka Saykoofo gudoomiyaha ururka Shabcaan Xaamid Maxamed maamulaha Tilson maamulaha dugsiga sare ee Qalax maamulaha cashuuraha bariga Wajaale iyo waliba macallin Cabdi Cali Xirsi sidoo kale waxa ka soo xaadiray waalidiinta dhashay ardayda wax ka barata waxbarashada ururka Saykoofo ee magaalada Gabiley xafladan oo ahay mid si arsara loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horeynta ujeedka xafladda macallimiinta kala duwan ee wax ka dhigta laanta waxbarashada ururka Saykoofo ee magaalada Gabiley kuwaasi oo qaadaya gabayo ugu tala galeen xafladda ma ogtahay barbaari jahli waa amuumo waa aqal madow agaraadum weeyo ruuxu abaadiyo ummadu haleela intifaac ma gaadho abidka maraysa waxbarashada maantana ka noqotay macallimiin marka ururkani wallahi aad ayuu fiicnaa oo maanta ma arag urur kale saan oo kale uga muuqda degmadeena Gabiley dhowr weeye Saykoofo daraasoo iftayo macallimiin aqoon leh rabbi ku dhameeyo waa indhe garad cilmiyeysan oo wax kasta ay barayaan af Soomaali dhigiisiyo bulshada ugu dhameeyay inay ku dhaafin aqoontiyo inta aan dhiganay asoo loo gaara sidoo kale maamulaha Tilson maamulaha dugsiga sare ee Qalax macallin Cabdi Cali Xirsi maamulaha cashuuraha bariga Wajaale agaasimaha waaxda qorsheynta ee Gabiley ayaa dhamaantood ku hambaliyay dadaalka dheeraadka ay wada ururka Saykoofo iyagoo tilmaamay urur horkacaya dhalinta isla markaana mudan in lagu daydo ururka si dhalintu ay horumar u gaadho kulliba xafladda waa xaflad qaali ah oo ay ka soo qayb galeen madax iyo macallimiintii yani maanta dugsiga waxaan aad iyo aad ugu salaamayaa ardayda fiican ee sida fiican u labisan ee dugsiga ka tirsan run ahaantii dugsigan ilaa aasaaskiisii khayr Allah siiyo inamadu waxay ku wadaan tabarruc way isxilqaameen iyagoo ay joogto dad da'dooda oo ama meelaha ku qayla ama meelaha taagtaagan iyagu waxay ku bixiyeen juhdi inay dadkooda indhaha u furaan dadan qiimaha badan ka Saykoofo marka hore waan ugu mahadnaqaynaa qabaqaadadooda iyo ka soo qaybgalka faraha badan leh ee ka soo qaybgalayba maadaama ay Saykoofo markaa shaqadeedu tahay waxbarasho kolley isku bahbaarnahay dadka isku bahdayna kolley waxa weeye waa isku ujeedo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana ku hambalyeeynaa inay hawsha waliba si laabaan oo ay noqdaan qudwatu xasana inay noqdaan dad lagu daydo inay noqdaan baan fikirinaa ururka Saykoofo ururka runtii waxaan inta sanad u bari ka qayb gali baan inay sanadkii shanaad ama afraad ee kala qayb galo inay tahay baan mareeyaa runtii ururkan ururka mutadawaca oo isagu gatay inuu dadkiisa hor u bariyo waxaan leeyahay laakiin waxaan leeyahay Saykoofo qof abaal cishaan ay haddii loo asxaab faro dambeeyay abaa baa u doonayay in wax la siiyo mana siiyo qof abaal cisha taan ay haddii لا يتعبر وحلابا Saykoofo إلهي بكيد دولتان أنا ونور دينو بنهي دينا كله وحلابا دينت كون هدي لقى ودشتو وين تكاد ما مسعته كل أنا عارف ما هذا كله كمسرق هذا بقى دونا ما هو كله قوي وحرم هالبقية اللي يرى أورك Saykoofo وعملت وحفلة ساحات كسوق يبقى أنت تنجمي كسبتي سنة ضربة سنة وشيخ محمد شاقي أما معبلا ترسو هذا من أما يستيج أي تاقناين ما تستيجين يقول إنك سنة تاقناين سنة وشيخ محمد شاقي يبقى قوة مدقى حفلة وكسوق يبقى لي يبقى وقالوا باشا يبقى وكسوق يبقى لي ترى تذكر كردية حلقة ربا كان يا يوقع واديته وحوالي أربعة السكول تلقاتها دوار اللي يريها
oo ay dhaleen aabba iyo hooyo meesha waxaa jooga uun hooyooyin aabbooyinkii ma joogaan runtii maanta farxad gaar way noo tahay inaan kala soo qayb galno ururka Saykofa qalinjibintoodii maaha markii koowaad marar hore kala soo qayb galnay runtii waan ku mahadinaynaa sida fiican ee ay u soo saarayaan jiil ummadda dambe wax ka bedela runtii waxa ugu qaalisan waalidku siiya carruurtiisa ma aha sida boqolee runtii waa aqoon haddaad ninka aqoon geliso بريت أول مستقبل كيسوي واحد من الدنيا رنتي إلى سوكر أقول جلسوا صوت عطب الشعب ما قبضه رنتي أكبر ومهنا قلنا ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka Saykofa Shibcaan Xaamud Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka loo aasaasay ururka iyo qaabka ugu adeega bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley gaar ahaan magaalada Gabiley hadii aan ku nabdoonka taariikhda ururka Saykofa ala aasaasay markaa 5 bishii May 2009 wasanadkii lixaad uu jiro ujeedada aan aasaasnay wax kala ma yahay dhalinyarada aqoon-yahanada ay gobolka ama dhalinyarada dugsiga sare dhigata in ay fikir cusub bilaabaan oo waxbarashada u dhigayaan oo aqoon la'aanta markaas la dagaalamaan oo waxa weeyaan wixii wax qabadkooda ay la yimaadaan waxa weeyaan intii markaa ururkan aasaasnay afar ujeedo ayaan aasaasnay gobolka markaa afar baa lahayd shayga koobaad aan mataakalka ka dhiganay ama shaqada ka dhiganay waxay ahayd waxbarashada waxaan u kala qaadnay laba qaybood waxbarashada tooska ah ee dugsiyada ka baxda iyo waxbarashada dadban ama waxbarashada loo yaqaano NFIda waxbarashada dadka waaweyn dadka aan jeceshay markaa inay waxbartaan ayaa ahayd fikirkii wata lagu dhalisay inaanu aasaasno oo helna dhalinyaro aqoon leh oo waqti burta oo samaysa dadka waaweyn ama dumar ama laga noqdaane ee waxbarashada in loo furo goob ay wax ku bartaan alxamdulillah way noo suurta gashay muddo 6 sannadood maanta waan ku wadnaa fikirkii maalintii aan bilownay 2009 ilaa maanta wuu socdaa waxaa tii hoos timid oo iyadana mid la noqotay waxbarashada markaa tooska ee dugsiyada ka socota inaan ardayda dhigato dugsiyada aan casharada ay waxay dugsiyada ay ku dhigtaan aan mar labaad ugu celino aan u jilcino intii awooddeena runtii dhalinyar marka la yahay waqtiga meelaha ugu fiican aan ku bixin karnaa waxaan isgaranay inay yihiin anagoo markaa fikir fiican adeegsana anagoo dhalinyarada kale ee markaasi ka walsan waqtiga ama jidka inay iyada laftooda ay nagu daynaan inaan u samayno jid la mari karo markaa dhalinyarada reer Gabiley ama aqoon-yahanada reer Gabiley sunnada u ammaanay inaan u samayno waxa kaloo markaasi taargetkeeda ka mid ah inaanu ka shaqeyno caafimaadka saan ka shaqeynana wacyigelin baan ka bixinayna markaasi bulshadeena waxyaabaha markaasi ay sameynayaan inaanu ka wacyigelino kolley waxaan farmasiyo ma furano ma daweynno laakiin waxaan u sameynaynaa ama aan u sheegaynaa intii aqoon aan ugu leenahay caafimaadka sida la iskaga ilaalinayo sida wax u qabanayaan sida la iskaga nadaafada iyo inaan xasuusino shayga saddexaad markaasi ee taargetkeyga ah ama aanu doonaynu ka shaqeyno ama aanu bulshadeeda markaa u soo bandhignaa waxay ahayd ilaalinta deegaanka aynu ku noolnahay inaynu markaasi ka wada shaqeyno oo la sameeyo burburid oo la sameeyo markaasi waxyaabaha cariguurka dadka miyada markaasi aynu maraya waxyaabaha xilliyada fasaxyada ku baxno oo uga shaqeyno markaasi sida ay beedooda u fulanaayeen carradooda sida u nafaqeynaayeen intii aqoonteeda ah taargetka afraad markaa uu kama aasaasnay wuxuu ahaa kobcinta dhalinyarada ama dhiirigelinta dhalinyarada waxyaabaha ay jecel yihiin ee awooddeeda inaan u qabano sida sportiska tartan aqooneedka dugsiyada ka wacyigelinta taariibka aafada xoreynka runtii aadkay noo soo food taatay markaa aafada markaayna soo foodtay mar walba nagala wacyigeliyo runtii waxyaabahaasa markaa lagu dhaliyey inaanu ururkan aasaasno gabagabadii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sanadka uu qaaday ururka Saykofa iyadoo ardaydii qaadanaysay shahaadooyinka wejigooda ay ka muuqatay farxad iyo damaashaad
si kastaba ahaatee ururkan Saykof oo kamid ah ururada ugu waxqabadka badan gobolka Gabiley isla markaana caanka dalka Somaliland sidoo kalena ka shaqeeya howlaha caafimaadka iyo dhiirigelinta dhalinyarada si looga badbaadiyo mukhadaraadka iyo tahriibta ururkan Saykof oo soo jiray muddo 6 sano ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2009 iyadoo jeedka hadafka iyo hanaanka loo aasaasina uu ahaa inuu horseed u noqdo horumarka kala duwan ee ka socda gobolka Gabiley iyo caasimadda gobolka ee magaalada Gabiley iyadoo laanta waxbarashada ururka Saykof ee magaalada Gabiley tahay mid wax lagu barayo dadka waaweyn iyo dadka yarba iyadoo halkaasi ay diyaar kugu yihiin macallimiin khibrad iyo hufnaan u leh casharada ay bixiyaan geesta kalena dadkii wax ka bartay ay ku liibaaneen cilmiga ay ka barteen waxbarashada laanta Saykof ee magaalada Gabiley waa Jaafar Awil Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley